سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكمدا dagaaladii abid ugu cusla ayaa ka soconaya deegaanka Kooba oo muddo dheer gacanta ugu jiray xogaga TPLF ciidamada militariga dalka Itoobiya oo xogaga Tigrayga ka qabsaday magaalooyin aad u ballaaran ayaa dagaalkii abid ugu cusla kala kulmaya magaalada Kooba ayadoo xogaga Tigraygu ay difaac aad u adag magaaladaasi ka xidheen asayeeshay ciidanka dawladda iyo maleeshiyaadka deegaanka Axmaarada iyo ciidamada Kaabaya ee dalka Eritrea ayaa weeraro jahooyin badan ah kaga soo qaadaya ayadoo kaasi uu ka dhacayo dagaal faraha lagaga gubtay oo xogaga Tigrayga iyo ciidamadan huwanta ku dhaxmaraya deegaankaasi rasaasta iyo hubka aadka u culusna ay soo adeegsanayaan magaaladan ayaa gabi ahaanba ay ka barakaceen bulshadii ku noolayd ayadoo halkaasi ay ciidamada kali ah ku dagaalamayaan xogaga Tigrayguna ay la kulmayaan culays aad u badan oo kaga imanaya ciidamada huwanta sidoo kale dagaalka ayaa ka soconaya xuduudda deegaanka Cafarta u dhaxeeya xogaga Tigrayga iyo militariga dalka Itoobiya ciidamada Tigrayga ayaa sheegay inay guulo aad u ballaaran halkaasi ka gaadheen ciidamadooduna ay wali baacsanayaan ciidamada huwanta ee militariga dalka Itoobiya uu hogaaminayo dagaalkuna uu deegaano hor la ku sii fidayo marba marka ka dambeysana dagaalkaasi uu ka qarxaya deegaano cusub xogaga Tigrayga oo ka dagaalamaya deegaano aad u tiro badan oo lagu qiyaasay ugu yaraan 10 jaha ay dagaal kaga jiraan ayaa hadda wajahaya weerarada culus oo rogaal culus oo kaga imanaya dawladda federaalka Itoobiya asayeeshay xogaga Tigrayga ayaa wali deegaanaya guura deegaanka Cafarta oo maalmihii ugu dambeysay xogaga Tigraygu ay qabsanayeen magaalooyin waaweyn oo deegaanka Cafarta xuduudda dalka Eritrea baarmaan loo yaqaan Tigrayga iyo Eritrea u dhaxaysa ayay wali ka soconayaan dagaalada adag oo culus ayadoo ciidamada taangida culus ee dalka Eritrea ay wali deegaano hor la isku sii ballaarinayaan dagaalyahanada TPLFna wali ay halkaasi dhufaysay waaweyn ka qodanayaan dagaalada horimaadyo aad u ballaaran ay ka dhacayaan deegaanadaasi ayaa ciidamada Eritrea lagu eedeeyay inay xasuuq aad u baahan u geysteen bulsho ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga ama gobolka Tigrayga ayadoo ciidamada Eritrea ay sheegeen marnana inay dhulkaasi ka baxeen ayna isku dayayaan inay markasta ay deegaano hor la qabsadaan ama xogaga Tigrayga gabi ahaanba ay ka saaraan dhulkan u dhaxeeya xuduudda dheer ee Tigrayga iyo dalka Eritrea gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo jamaacada Ola oo abaabushay dhalinyaro aad u tiro badan ay beegsanaysa maamulka deegaanka Oromada iyo militariga dalka Itoobiya jamaacada Ola ayaa sheegtay in jabkii abid ugu cusla gaarsiisay ciidamada dawladda Itoobiya ee ku sugan gobolka Walega ayadoo jamaacadu ay sheegtay in Israa'iil aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigtay jabkii abid ugu cusla ay gaarsiisay maamulka deegaanka Oromaduna ay sheegeen jamaacada weerarada xoogan wada dagaal kharaarna ay ka soconayaan bartamaha iyo waqooyiga gobolka Sheewa dagaaladuna ay aad u culus yihiin militariga dalka Soomaaliya ayaa wali sii wada howlgallada aadka u ballaaran ee lagu beegsanayo xogaga argagixisada ee ka dhaqaaqa dalka Soomaaliya ayadoo dagaalada culus ka soconayaan bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ay sheegeen guulihi abid ugu cusla inay gaareen dagaalkaasi jab aad u culusna ay gaarsiiyeen xogaga argagixisada ayadoo wali dagaaladu ay ka sii soconayaan gobolka Hiiraan ciidamada macawislada iyo militariga dalka Soomaaliya la sheegay inay deegaano hor la ka qabsadeen xogaga argagixisada haseeshee wali qaraxyada iyo ismidaaminta lagu waxyeelanayo bulshada Soomaaliyeed ayaa wali ka sii soconaya gobolada dalka Soomaaliya ayadoo xogaga argagixisada maanta qaraxyo waaweyn ay la eegteen deegaanada gobolka Hiiraan ayadoo halkaasi ay ka dhacayaan dagaalada culus qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha 10 2022 haddaynu guda galo
wararkeeni oo faahfaahsan. magaalada Koba waxaa ka soconaya dagaalada culus oo u dhaxeeya xogaga Tigreega iyo ciidamada huwanta uu hogaaminayo militariga dalka Itoobiya. militariga dalka Itoobiya oo saacadihii la soo dhaafay deegaano aad u tiro badan oo gobolka Woolaha ka qabsaday xogaga Tigreega oo isku sii ballaadhinaya deegaano hor leh ayaa hadda dagaalku waxa uu ku soo biyashtay magaalada Koba oo muddo dheer gacanta ugu jirtay dagaalyahanada TPLF maalmihii ugu dambeysaba iyo bilihii ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen dagaalkan ay halkaasi ka hagayeen. dagaal afar jaha ayaa magaaladaasi ay ku soo qaadeen militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada huwanta ee garabka siinaya ayadoo dagaal faraha lagaga gubtay ay ciidamada halkaasi ku dagaalamayeen gacmaha isula tageen oo halkaasi ka soconayo hubka hiraaga taangiyada aadka culus la isku garaacayeen halkaasi laga maqlayo. bulshada magaalada Koba ayaa gabi ahaanba deegaanadaasi iskaga barakay ayadoo halkaasi ciidamada kaliya ay isku hardamayaan walina dagaal aad u culus oo ka soconayo. xogaga TPLF ayaa saacadihii la soo dhaafay deegaano aad u tiro badan oo gobolka Wola iskaga soo hurulay ayadoo culayska ay ciidamada Itoobiya ee cir iyo dhul weerarada xooggan ka wada ay u adkeysan waayeen kadibna ay u soo ruqaansadeen deegaanada xuduudda ku tirsan hase yeeshee dagaalku wali maaha mid halkaasi kaga hadhay xogaga Tigreega. dagaalkuna wuxuu ka sii soconayaa deegaanada ballaadhan xuduudda deegaanka Canfarta sidoo kale waxaa ka soconaya dagaalada culus ayadoo xogaga Tigreega ay sheegeen in magaalooyin hor la ka qabsadeen maamulka Canfarta walina dagaal culus oo u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada Canfarta iyo Eritreanka oo iskaabaya iyo ciidamada TPLF oo geeska kale ka soo jeeda ay ka soconayaan xogaga Tigreeguna ay ka sheeganayaan guulo aad u ballaadhan deegaanadaasi. dagaal aad culus oo ka soconayo gobolka maamulka Canfarta ciidamada Canfarta ayaa sheegay in ciidamada Tigreegu ay deegaano hor la qabsadeen halkaan ay ku waxyeelayeen dad rayida hase yeeshee dagaalku wali waa uu culus yahay. xuduudda Eritrea u dhaxaysa Tigreega ee loo yaqaan Badma ayaa ka soconaya wali dagaal culus ayadoo ciidamada Eritrea ay geysanayaan duqeymo iyo hubka aadka u culus oo ay adeegsanayaan hase yeeshee dagaalyahanada TPLF ayaa wali iska cabin aad u ballaadhan deegaanadaas ka wada ayadoo dagaal aad u culus xuduudaasi uu ka socdo waqooyi galbeed Tigray ay wali isna dagaalku ka sii soconaya. xogaga Tigreega ayaa wajahaya weeraro aad u culus oo rogaal celisa oo dowladda federaalka Itoobiya ay dabada ka riixayso ayadoo dagaaladu ay ka sii furmayaan deegaano hor leh. ciidamada dagaalyahanada Oromada ee OLF loo yaqaan ayaa dagaal culus ku qaaday fariisimo ay lahayn ciidamada militariga dalka Itoobiya ee gobolka Walaga iyo waqooyiga Shewa ayadoo maamulka Oromada uu sheegay in dagaalyahanadan ay weeraro xooggan ku hayaan fariisimaha maamulka gobolka Oromiya dagaal culusna ay wali ka sii soconayaan bartamaha deegaanka Oromada. qodobareedkeena ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya iyo ciidamada macawisleyda ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan xogaga argagixisada ayagoo sheegay inay deegaano hor la ka qabsadeen jab aad u culusna ay gaarsiiyeen xogaga argagixisada wali dagaaladuna ay ka sii soconayaan deegaano hor leh. hase yeeshee xogaga argagixisada ayaa wali adeegsanaya qaraxyada ismidaaminta lagu waxyeelanayo bulshada rayidka aadka u taageeran ayadoo xogaga argagixisadu maamulka Hirshabelle maanta ay qaraxyo waaweyn ka fuliyeen dad rayida oo maatiya oo waxba galabsan ay waxyeelo aad u ballaadhan ka soo gaadhay. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa wacad ku martay inay soo afjari doonto xogaga argagixisada aynana socdaan abaabuladii ugu cusla ee gabi ahaanba xogaga argagixisada lagaga sifayn lahaa dalweynaha Soomaaliya ayadoo wali howlgaladu ay ka sii socdaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.